السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Afmaal Studio. Haday tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar, gambalaalkana furo si ay kuu soo gaaraan wax walba oo cusub. Kusoo dhawaada sheekadeena maanta waa sheeko yaab loo cajiiba, ciwaankeeduna uu yahay tuugii alla ka cabsiga badnaa. Waxaa jiri jiray wiil dhalinyaro oo alla ka cabsi badan. Wiilkaana wuxuu ahaa nin doqon ah. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu aaday nin sheekh si uu cilmiga uga soo barto. sheekha ayaa ku yiri asagii saaxiibadiis markay cilmiga xogaha yar barteen, ha ahaanina kuwa ku dul nool dadka kale, maxaa yeelay qofka caalimka ee diinta bartay ee gacanta u taaganaya dadka dunyada haysto wax khayr ah kuma jiro. mid kastoo idin ka mid ah ha tago ha baxo, hana soo qabto shaqadii aabihii uu qaban jiray, ilaahayna ha uga cabsaday subxaanahu wa tacaala. wiilkii dhallinyarada uu baxay wuxuuna aaday hooyadiis, wuxuuna ku yidhi, hooyo ii sheeg shaqadii uu qaban jiray aabbahay. hooyadii waa ay la yaabto, waxayna ku tiri, aabbaha waa uu dhintay, allah u naxariistee, maxaa kaa galay maanta shaqadii aabbaha uu qaban jiray? hadalkii ayuu ku celceliyey. hooyadana aad ayay u gaagaabinaysay ilaa ay ku qasbanaatay markii dambe inay la hadasho, oona sheegtay iyadoo dhibsanayso aabbihiis inuu ahaa tuug. wuxuu ku yidhi, hooye sheekh ayaa ina amray maanta inaan ka shaqayno shaqada waalidkan uu qaban jiray, ilaahayna aan uga cabsanno. hooyadu waxay ku tiri, halaagaagee tuugnimada ma alla ka cabsi baa ku jiro. wiilkii oo doqon ahaa ayaa yidhi, haa sheekh ayaa sidaas nagu yidhi. waa u baxay, dadka ayuu su'aalay, wuxuuna soo bartay qaabka tuugada wax u dhacaan. wuxuu soo bartay farsamooyin fara badan ay tuugada wax ku dhacaan. salaaddii cishaha ayuu tukaday, wuxuuna sugay intay dadka ka seexanayaan. waa u baxay si uu u soo qabto caawa shaqada aabbihiis uu qaban jiray. deriskiisa ayuu ka bilaabay, wuxuuna hamiyey inuu galo, laakiin wuxuu xusuustay dardaarankii sheekhii ee ahaa alla ka cabsi. wuxuuna yidhi, alla ka cabsi ka mid maahan in la dhibo jaarka. waa uu sii tallaabay, wuxuuna aaday meelo kale. wuxuu sii maray markaan guri agoon ay degganaayeen. nafsaddiisa ayuunu ku yidhi, ilaahay ayaa ka digay in la cuno maalka agoonta, alla ka cabsigana kuma jirto maalka agoonta oo la cuno. ninkii waa uu sii socday ilaa uu ka gaaray guri nin taajira uu iska lahaa. taajirkaana ma lahayn wax waardiye ah. dadkanu way ogaayeen in ninkaa maalkiisu uu ka fara badan yahay intuu asaga uga baahan yahay. markaasuu wuxuu ku yidhi, halkaan haa. iliddii ayuu furay, waana u galay. wuxuu dhex gelay daar waasaca, qolalkeeduna ay fara badan yihiin. waa uu ku warwareegay ilaa uu helay meeshii maalka yaallay. sanduuqa ayuu furay, waxaaba ku dhex jirtay dahab iyo fidlooyin fara badan. wuxuu hamiyey inuu qaato. markaasuu wuxuu yidhi, maya sheekh wuxuu ina faray alla ka cabsi. waxaana laga yaabay ninkan taajirka inuusan maalkiisa ka bixinin sakadii, bal aan sakada ka bixiyo marka hore. bugaagta ayuu soo qabsaday, faynuus yar uu watayna wuu shitay. markaasuu bugaagtii inuu xisaabiyo bilaabay. wuxuuna ahaa nin xisaabta aad ugu dheereeyo, khabiirna ku ah. maalkii ayuu koobay, sakadii ayuuna xisaabiyey, dhinac ayuuna ka dhigay sakadii maalka laga rabay. xisaabta ayuu sii dhex galay ilaa ay ku qaadatay saacadooyin fara badan. haddii wakhtiga uu fiiriyena waxaaba la gaaray fajarkii. markaas wuxuu yidhi, taqwada alleh ayaa horrayso, waana in salaadda la tukada marka hore. bannaanka ayuu u soo baxay, wuxuuna biyo ka shubtay barkaddii, waana u weyse qaatay. wuxuu isku diyaariyey inuu tukado. ninkii guriga iska lahaa ayaa maqlay, wuxuuna arkay, wuxuu la yaabay faynuus yaroo shidan, sanduuqii maalkiisiiyoo furan, iyo nin doonaya inuu tukado. xaaskiisa oo iyadana soo kacda ayaa ku tiri, waxaan waa maxay? wuxuu yidhi, wallaahi baan ku dhaartay ma garanayo. xaggiisa ayuu u soo dhaqaaqay, wuxuuna ku yidhi, war halaagaagee maxaad ahayd adiga? waxa aad samaysana waa maxay? tuuggii ayaa yidhi, anuu waxaan ahay, salaadda ayaa horrayso, hadalkan waa ku xigaa. weyse qaata ee ina tuji, adiga ayaa ah imaamka, maxaa yeelay guriga aynu joogin waa gurigaagee. ninkii wuxuu ka cabsaday haddii uu hormaray ninka inuu hubsito wax ku dhufto, laakiin waa uu hormaray. ilaahay ayaana og sida uu ku tukaday imaamkaas. salaaddii markay ka baxeen ayuu ku yidhi, war khabarkaaga ii sheeg, maxaa tahay sha'nigaagusu muxuu yahay? ninkii wuxuu yidhi, waxaan ahay tuug. wuxuu yidhi, maxaa ku samaynaysay bugaagtayda? wuxuu yidhi, waxaan xisaabinayay sakada maalkaaga laga rabo, middaasoo aadan bixinin 6 sano. waana xisaabiyey, haddana dhinac ayaan u dhigay. ninkii guriga lahaa wuxuu ku sigtay inuu la yaab u waasho, wuxuuna ku yidhi, war halaagaagee khabarkaaga ii sheeg, ma waxaa tahay ruux waalan? khabarkiisii o dhan ayuu u sheegay. waxaana soo baxday markaan qorraxdii. taajirkii markii uu maqlay ninkan hadalkiisa iyo xisaabta siduu ugu fiican yahay iyo hadalka siduu runta uga sheegayo, wuxuu u laabtay xaaskiisii waana ula soo hadlay.
waxaa u joogtay hal gabar. Ninkii ayuu ku soo noqday wuxuuna ku yidhi, war ka waran haddaan kuu guuriyo gabadhayda ana kaa dhigto qoraa iyo xisaabiye, gurigaygana aan ku dejiyo adiga iyo hooyadaa, kabacdina aan shirka noqonno. Ninkii wuxuu yidhi, haa waan aqbalayaa, haddayba gabadhaada aqbalayso wallaahi baan ku dhaartay adeer, ma jecli inaan qabto shaqada aabbahay, waxaan jeclaa inaan qabto shaqo xalaalah oo wanaagsan. Taajirkii wuxuu u yeeray shuhuud, halkii ayuuna iskugu daray tuuggii alla ka cabsiga badnaa iyo gabadhiisii. Tuuggii alla ka cabsiga badnaana halka ayuu ku noolaaday, asaga iyo hooyadiis iyo adeerkiis iyo xaaskiisii, asaga oo faraxsan qanina ah, waxaana wuxuu ku helay alla ka cabsigii. Fadlan hadday qisadan ku cajab gelisa like saar.